magaalo 1600 sano aasneed ama dugneed magaalo dadkii deganaa dhammaantooda ay noqdeen dhagaxaan ama isu bedeleen dhagax haddaba waa tuma magaaladan maxay tahay masiibada ku dhacday magaaladan maxay tahay sababta ay dadkani iyagoo bini'aadan ay isu bedeleen dadkani ayaa la sheegay in habeenkii ku socdeen nabad waagana ugu baryay iyagoo wada dhagax dhammaantood ay noqdeen dhagaxaan haddaba maxay tahay sababtani ama arrimahan ay ugu dhaceen magaaladan kaga boga muuqaalkan faahfaahsan insha allah السلام عليكم بامبي قصة مقالة بامبي مقالة أي كمان قف كنا لاين لكن هبين هذا كم إذا أي قراءة ود عليه دين تنبنا أنا أقصو بعين أو أقصو برين مقالة تاريخية بامبي أو كتالة كونفرتا تريانية dadku waxay isu bedeleen dhagax oo kale muuqaal ahaan ilaa maanta la arkayo oo ay weli jiraan iyagoo dhagaxaan ah waana dhacdooyinka ugu yaabka badan taariikhda dunida daanta gacanka Napoli waxaa ku yaala buur aad u weyn oo lagu magacaabo buurta Vesuvius buurtaas hoosteeda waxaa ku yaala magaalo qadiimi ah aadna u dhisneed isla markaana lahayd magaalo soo jiidasho leh xilligii boqortooyadii Roomaanka wax walba caadi ayay ahaayeen laakiin bishii Agoosto 25-keedii sanadkii 19 miilaadiga ayaa waqti habeen ah oo ay dadku hurdeen ayaa hal mar buurtii Vesuvius soo tuftay holac iyo dambas iswata oo guuraya oo weliba dambas qulqulaya oo wixii ka hor yimaada ku dhegaya sidii inaad moodo in magaalada lagu garaacay hub atomic bam ah ilbiriqsi gudood ayay dadku nafta uga haadaysay isla marka uu dambasku taabto waana arrin ilaa maanta la arkayo in meydadka dadkii ku noolaa magaalada Bambi ay weli yihiin dhagaxaan dadkaas waxaa ka mid ahaa qof hadlaya mid fadhiya qof khayrinaya oo leh badbaadiya oo dhammaantood sidaa ku dhawaxoobay dhammaan dadkani ma ahan taalooyin la qoray ama la dhisay ee waa dadkii Bambi ee markuu falkaanuhu dhacay dhagax isu bedelay dambaska ka dhashay falkaanaha buurta Vesuvius wuxuu magaalada daboolay muddo 1600 oo sano ah waana waqtigii la waayay ee qarsooneed magaalada Bambi haddaba sidee lagu helay magaalada Bambi sanadkii 1748 waqti howlo cilmi baaris iyo qoys lagu waday halkaas ayay shaqaaluhu arkeen qol qabri ahaan loo adeegsaday iyo in la helay wadooyin guryo meydad dhagaxoobay iyo magaalo sideedii ah oo dadka deganaana ay ahaayeen dad 1600 oo sano ah ka hor ahaa meydad dhagaxoobay oo dambaskii falkaanaha ka hooseeyo Bambi waxay ahayd magaalo aad qani u ah oo looga imaan jiray magaalooyinka kale ee boqortooyadii Roomaanka waxay ahayd meel qofkii nasasho iyo raaxo adduun raba u aadi jiray horumar dhinaca nolosha ayaa ka jiray magaalada laakiin xaaladeeda dhinaca anshaxa wuxuu ahaa mid xun oo liita waxayna magaaladan qaniga ah ee hantida ka keentay shirkado sameeya filimada xunxun ee anshax darada ah iyagoo horumarkaas gaaray ayay wadooyinka dhexdooda isugu tegi jireen sida xayawaanka ku nool keymaha dhammaan fagaarayaasha magaalada waxaa ka tagnaa taalooyin aan fiicneen oo dhammaantood tilmaamaya falal aan wanaagsaneyn sida dad isu tegaya dad iyo xoolo nin iyo naago iyagoo sidoo kale derbiyada magaaladana ku sawiray waxa aan ka soo hadalnay iyo inay weelasha wax ay ku cunaan ay u ekeysiyaan xubnaha taranka bini'aadamka dhammaan waxyaabahan iyo sawiradan waxaad ku arki kartaa madaxafka magaalada koonfurta Talyaaniga ku taal markii magaalada la helay boqorkii Talyaaniga ee waagaas ayaa amar ku bixiyay in farshaxanka iyo taalooyinka dhammaan hal meel la isugu geeyo oo ah goob loo bixiyay Gabinetto Segreto oo macnaheedu yahay qol sir ah muddo dheer ayay mamnuuc ahayd in la galo qolkan sirta ah intaan la fasaxin oo maanta dadka taga magaalada Bambi way tagaan wayna soo arkaan
waxaana yaala muuqaalo iyo sawiro aan halkan lagu soo bandhigi karin oo ka fog bini'aadanimada. dhacdadan waxay ahayd sanadkii 79aad ee miilaadiga ee qarnigii 1aad ee miilaadiga. Bambi waxay ku taalay buur hoosteeda, laakiin dadka magaalada Bambi ma ogeen in buurtan noqon doonto sababta baaba'ooda iyo inay duumi doonaan oo la waayi doono. waa buur falkaana ah laakiin deganeed oo markii dambe kacday sidaan soo sheegnay sanadkii 79aad ee miilaadiga. falkaanaha buurtan ayaa kacay habeen madow oo ay dadku ay hurdaan. kuleel, qiiq, dambas iyo uburo ayaa hal mar isqabsaday. magaaladii kumanaalka qof ku noolaayeen hal mar ayay isu bedeshay qabuuro. qof walba bartii uu jiifay ku dhagaxoobay. muddo aad u dheer warka magaalada Bambi ku koobnaa kutubta iyo taariikhda oo keliya. aad ayaa looga sheekeyn jiray, laakiin dhab ahaantii meesha ku taalo intiqaano ma jirin. 1600 oo sano ayay aasneyd magaaladan ilaa markii dambe ay baareen khubaro ku takhasusay cilmiga geologiga ama cilmiga dhulka inay ogaadeen inay tahay magaaladii falkaanuhu baabiyey ee Bambi. markii la dhameeyey qodidda magaaladii waxay noqotay sida magaalo wax walba leh, sida suuqyadii, ganacsigii, baarihii, guryihii iyo dadkii oo dhagaxoobay. xaqiiqdii falkaanaha waxa uu ahaa halaag iyo musiibo ilaahay xaggiisa ka yimaaday oo loogu talagalay reer Bambi iyo in kale allahu aclam. inkastoo dhacdadan ay ka horreysay soo diristii nebiga 500 oo sano markii aan ka soo tagno inay ahayd magaalo fisqi badan. waxay ahayd magaalada la yaab leh oo aad cajiib u ah. dadkeeduna waxay ku noolaayeen sida nolosha dadka maanta ay u nool yihiin, sida inay lahaayeen fagaarayaal loo dalxiistago, meelo jiimka, hoolalka jirdhiska iyo meelo kale oo lagu raaxaysto. markii falkaanuhu qarxay waxa uu dhaliyey qaraxyo waaweyn oo dhulka gilgilay. muddo laba maalina ayay biyaha kulul, gaaska falkaanaha iyo uburadu ku qulqulayeen magaalada, taasoo keentay in ilaa 6 mitir magaalada duubanto. waxaa kaloo dhacay roobab mahigaan ah oo wata guga iyo ilaah aan horey loo arkin. waxaa la arkay in dadka waxa sidan u laayay uu ahaa dabka falkaanaha sida biyaha u qulqulayay oo heerkul ahaan uu gaaray 100 digrii. 3 meelood meel dadkii magaalada Bambi waxay u geeriyoodeen sidii ay ahaayeen iyo meeshii ay ku sugnaayeen. intaasi waa qisada magaalada Bambi oo qofkii maanta booqda uu indhiisa ku arki karo meeshii ay ku taalay magaalada oo ah koonfurta dalka Talyaaniga.